Assalaamu calaykum. Xiriirka waxaa lagu tilmaamaa wada shaqeyn, wada macaamil ka dhexeysa laba qof. Haddii aad rabto in aad hesho xiriir wanaagsan oo noqdo mid weligiis jiro, ila dhegeyso qisadan wixii cashir ahna ka qaado. Nin ayaa jiray, wuxuu iska ahaa qof dhibaatadiisa qarsada ama dad badan aan la wadaagin. Wuxuu ka shaqeyn jiray xafiis kaasoo mushaar aad u yar laga siin jiray. Badanaa wuxuu ka labalabeyn jiray in uu weydiiyo booskiisa ama mudanihiisa in mushaarka loo kordhiyo. Subax maalin ay Jimco tahay ayuu soo kacay, xaaskiisa ayaa waxa uu ku dhahay, gacaliso, maanta waa in aan wax suubiyaa, waa in aan ka codsadaa booskeyga in uu mushaarka ii kordhiyo. Ninkii shaqada ayuu soo aaday, markuu xafiiska imaaday, wuxuu ahaa mid aad u walaacsan, maalintii dhanna wuu ka walwalsanaa arrinta iyo sidii uu mudanihiisa wax ugu sheegi lahaa. Galabkii markii la soo gaaray, xafiiska mudanihiisa ayuu soo aaday si uu oola kulmo. Ugu dambeyntii, ninkii geesinimo ayuu iska raadiyey si uu u weydiisto mudanihiisa in mushaarka loo kordhiyo. Markii arrintii uu sheegay mudanihiisa, wuu ka aqbalay, mushaarkiina waa loo kordhiyey. Ninkii waxa uu dareemay farxadtii ugu sarreysay. Guriga ayuu ku soo laabtay, waxa uu arkay casho sharaf aad u qurux badan oo miiska cuntada ku diyaarsan. Miiska waxaa saarnaa qeybaha kala duwan ee cuntada, kuwaasoo isku dheelitiran dhinac walbo. Shumacyo ifayana waa lagu xardhay miiska korkiisa. Xaaskiisa ayaa u diyaarisay maamuuskan aadka u quruxda badan, taasoo ay ugu talagashay in ay waqti farxadeed isla qaataan xaajigeeda. Ninkii ayaa isdhahay, midhaa waxaa laga yaabaa qof ka imaaday xafiiska aan ka shaqeeyo inuu u sheegay xaaskeyga arrinta farxadda leh oo ah in mushaarka la ii kordhiyey. Si kastaba ha ahaatee, ninkii wuu soo orday, farxad awgeed wuu iscelin waayey. Xaaskiisa oo jikada ku jirta ayuu u imaaday, markaasuu hab siiyey. Wuxuuna u sheegay arrinta farxadda lahayd oo ah in mushaarka loo kordhiyey. Ninkii wuu soo baxay, meesha lagu cunteynayay ayuu imaaday. Miiska korkiisa waxaaba saaran kaarkii ayuu soo qaaday, waxaana ku qornaa erayadan: hambalyo gacaliye, waan ogsoonaa in mushaarka lagu kordhin doono. Xafladan aadka u quruxda badan oon ku diyaariyey waa jaceylka aan kuu qabo iyo qiimaha aad agteeda ka leedahay. Gabadha xaajigeeda markii ay si fiican u qaabishay, jikada xaggeeda ayay soo aaday si ay ugu keento macmacaan loogu talagalay cuntada markii la cuno kadib. Markii dhinaca jikada ay u soo dhaqaaqday, gabadhii kaar ayaa jeebkeeda ka soo dhacay ayadoon ogeyn. Ninkii ayaa kaarka dhulka ka soo qaaday, markuu akhriyay kaarkii wixii ku qornaa, wuu iska ooyey, ilin ayaa ka soo daadatay. Kaarka waxaa ku qornaa erayadan: ha ka walwalin gacaliye, haddii xitaa mushaarka aan lagu kordhinin, waad u qalantaa maanta inta aan kuu suubiyey in ka badan. Xafladan aadka u quruxda badan, ayu nooc cuntooyinkan, jawigan quruxda badan, dhammaan waxa ay ku tusinayaan jaceylka aan kuu qabo inta uu leegyahay. Jaceylka dhabta ah waa sida caawin joogto ah, isgarab qabashada iyo wada shaqeynta. Jaceylka ay u qabtay xaajigeeda xaduud muusan lahayn, kumuusan xirneen maal adduunyo. Jaceylkeeda kumuu tiirsaneen guusha uu ka gaarayo meesha uu ka shaqeeyo. Run ahaantii wuuba ka duwanaa. Sidoo kale, iyada diyaar bay u tahay mar walba inay caawiso, moraalka ay u dhisto, ayna ku kalsoonaato. Haddii xitaa adduunka dhan uuna diido, haddii aan haysano hal qof nolosheenna kaasoo nagu jecel waxa aan nahay, gebi ahaanba kalsooni nagu qabo, sidoo kale taageero buuxana na siinayo, ogow markaas ayaan gaari karnaa guusha iyo halka aan hiigsaneyno. Sidaa daraaddeed, noloshaada asxaab la noqo dad ku aaminsan, kalsooni ku qabo shakhsiyadaada, kuwaas oo kugu tixgelinaynin guulaha aad gaartay iyo duruufaha nololeed oo la kulmaysa intaba. Sidoo kale, adiguna noqo qofkaas oo kale adoonan fiirinaynin guusha iyo duruufta nololeed ay wajahayaan. Assalaamu calaykum. Asxaabta muuqaalkan la sii faafiyo, gaarsii saaxiibka si uu u gaarsiiyo saaxiibkiisa. Waad mahadsantihiin.